howlgalkan ay ciidamada xoogga dalka guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad ee gobolka Bakool saaka ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Xudur waxaa barbar socday howlgallo habeennimadii xalay looga hortagay isku day arbushaad oo bulshada lagu arqaladaynayo oo khawaarijta shabaab damacsanayeen oo ciidamada guutada sagaalaad ka hortageen khawaarijtii dhaqarta maleegaysayna ka qabsaday mooto gaadiid ahaan u isticmaalayeen qaar ka mid ah khawaarijtana goobta lagu dilay kuwii kalena ay baxsadeen sida ay xaqiijiyeen saraakiisha howlgalka hogaaminaysay meel magaalada banaankeeda ayaa damacooda ahaa khawaarijta in rasaas kaga tuuraan hase ahaatee ciidamada oo roonda ku jira xogtoodana hayay ayaa fashiliyey dhaqartooda maleeshiyada khawaarijta shabaab oo gobolkooda sii dhacaya ayaa dhulka hoodka ee xoolaha daaqaan iyo goobaha biyaha dadka u fariista si xoolo baada uga qaataan howlgalkan waxaa lagu xaqiijinayay ammaanka meelaha ay ku dhumaalaystaan khawaarijta taliyaha ururka 11aad guutada sagaalaad laba xidigle deerow macalin cabdi iyo taliyaha howlgelinta guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee gobolka Bakool daahir cali maxamed ayaa ka hadlay sida ay uga hortageen dhaqarta khawaarijta iyo difaaca shacabka ay u taagan yihiin nimanka khawaarijinka intii degmadu walaha ka tuureen yamadi tama meel dhata elangali meel dhata elangalina kulay baawurkii wadadeen baawurshi hortaba mooti hay mootadiin walku qobsadi onoona madee dhatan kulay yoo weydiyaani kulay rabsho iroor shome wal kale un aragnay made wartuun hadda kooydina kulay warti oo deegaanka dhufaysan eretam magaalada ku dheerna ma marka hadda tamnaad ergulaayna dhufaysan kulay eeriidan wal yar walaal ka sheego hay laakiin nimanka nabadiidka كلي ميل بدن oo dawladdu kula dagaalimo ay too jarto unuuna kaalantay aniga una leena ku qaadaan ciidanka xoogda Soomaaliyeed aadan leena oo dumay baaha biyay nuraha biyaas unuuna galbaga shacabka in degno marban markastan aragaan shacabkaas neef farxaan la fadee hadii uu shacabka aragaan oo nahan muhiim ah taayada marka ciidanka ma sheegay meel kasto rowdan shacabkan halan gargaaroy waranyaanka oo dhabo hayaan oo macna aqran laabiyaashana halku buufiyo lankasta adkaysi badan sameeyna hay sameeynan hamiin iyo geeba may balan qaadnay in hajeen waana la soo xaaladii soo meel kasta oo wala ku galaan korsan oo aan si xalay baad moodun qaban oo kal anta hadda ma bil sheegaha ilaa iyo lam qafa xalay ku baqtiyay leeyahay jiidinga leeyahay raadin xaqiiqdii ma arna laakiin dhiigsho iyo walaasho aragnay ma hadda ma aragna ma korsanuna laakiin meel ku jiidinga qaan ilaa iyo 20 kilomitir hormiyaan marka mood kala kala arrin marka insha Allah shaqo baan shaqay in la shaqayaan shaqo la ma shaqay korno habis warbixineen seen ma shaqay korno marka unoona hab ilaahay suujiga lama hadahan bilaawday Bakool in al daraansho iyo in shaqada ciidamada isgarabsadaan hool badan ku bilaawaan la faday maalmadaha isgarabsata insha Allah ilaahay balan shay shaqo ma baa dumar lamaad kabooriyay ama in shaqada anka dhaqay wala isin gordaasan shabaabkan ma isin gordaasan la hadala sidii haaski dhiib fadan hoob hanis dhiibna xaqiiqdii meel ka soo rogaan hami imaan la dagaalamaana shacabkana inta dhabaatoon kortiye inuu dhamaan ma dhibaatin inuu diyaaran maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur.